wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle injineer Cabdikariin Cali Nuur oo soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Beledweyne waxa uu go'ayn oo faahfaahin uu ka bixiyay ujeedka safarkiisa maanta uu ku soo gaaray magaalada iyo waxyaabe uga qabsoomay dhanka dib u heshiisiinta bulshada wasaaraddiisa sanadkii tagay 2019 iyo waliba waxyaabaha uu rajaynayay sanadkan cusub ee 2020 wasaaraddiisu ay ka qaban doonto dhanka dib u heshiisiinta bulshada waxaan rabaa inaan u hambaleeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle ilaahay waxaan ku baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu nooga dhigo sanad khayr qaba una tacsiiyo dhammaan intii ku geeriyootay sanadkii hore aan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala samari iimaan intii ay ka geeriyoodan Allah ka siiyo ayagana maaragtay qabrigooda waasac Allah uga dhigo waxaan maanta soo gaaray magaalada Beledweyne caasimadda labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle sababahan u imidna waxaa ka mid ah dardargelinta hawlihii dib u heshiisiinta oo aan muddaba soo wadnay qaabkii aan maaragtay u sameyn lahayn maaragtay prioritiska sidii maaragtay dagaaladii Matabaan Kabxanley iyo Deefo iyo midda hadda soo cusboonaatay oo Jawiil aan rabno in insha Allah tacaala inaan dardargelino aan qaab soo kala horeysiisano iyadana aan maaragtay qaabkii aan ku aadi lahayn oo dadka walaalaha ay ku dagaalamaya degmada Feerfeerna ayada naftirkeeda aan ku xalin hadii Ilaahay yiraahdo sanadkan bilowgiisana waxyaabaha aan rabnaa waxay tahay inaan waxyaabo la taaban karo aan qabano dib u heshiisiinta ka qabano waayo dib u heshiisiintu waa furaha maaragtay ummadda oo dhan reer Hirshabelle hadii heshiis la helo dadkan inay wada noolaan karaan marka waxyaabaha socdaalkayga uu ahaa maanta waxay ahayd dardargelinta hawlihii noqobyada ah ee dib u heshiisiinta sanadkan inta kaarsan hadii Ilaahay yiraahdo sanadkii hore waxyaabaha ku guuleysana waxay ahayd colaado badan ayaa jiray beelo badan ayaa isdagaalayay sida maaragtay colaadii ka dhaxaysay tuulooyinka hoostaga degmada Cadale waxaan ku guuleysanay inaan maaragtay maslaxad dhex dhigno oo xabad joojin loo sameeyo waxaan kaloo ku guuleysanay maaragtay sanadkii hore dagaaladii soo noqnoqonayay ee degmada Matabaan in maaragtay xal laga helo oo aysan dagaalkii uusan soo laalaabanin oo maaragtay xabad joojin la dhex dhigo dadkiina is dhex galaan laakiin waxa noo dhiman oo kaliya dadkii in la soo fariisiyo heshiis rasmiya na la kala saxiixdo hadii Ilaahay yiraahdo 2019 waxyaabahan aan ku guuleysana waxay tahay in colaadaha la damiyo oo maaragtay waxyaabaha la yiraahdo hotspotska ay jiray hotspotskii oo dagaalada markasta ay ka soo coran jireen in la qaboojiyo in la joojiyay maaragtay dagaalihii soo noqnoqonayay 4 bilood 5 bilood 6 bilood ka bacdi soo noqnoqonayay waxyaabaha hadda aan rabno waxay tahay dagaaladii la joojiyay inaan u sameeyno markaasi dibadabada loo aaso loo joojiyo maaragtay loo helo xal waara ay dadka isku dhaxgeli karaan oo loo helo maaragtay dadkan inay yihiin dad walaalo ah wada shaqaysan karaan isdhaxmali karaan ganacsina uu ka dhaxayn karo taas ay tahay barnaamijyada aan wadna hadeertan hadii Ilaahay sanadka cusub bilaha horeetan aan ku soo gabagabeynayno billahi ta'ala sidoo kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur mar wax laga weydiiyay jiritaanka waxa uu ka ogyahay iyo halka uu ku dambeeyay mooshin toddobaadii la soo dhaafay baraha bulshada la isla dhaxmarayo oo la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ay ka soo gudbiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa wasiirku ku jawaabay sidaan dhibta jira horta waxay tahay mooshinkaas wax ka jira ma lahan wuxuu ahaa wax la yiraahdo fabricated waa la soo abaabulay oo dad ayaa geed fadhi u ahaa dadka geed fadhigu u ahaayna waa la yaqaanaa waxa ku jira wasiir federaal ah waxa ku jira dad maaragtay ugu sareeyo shanta ugu sareyso maaragtay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka tirsan hadii aan carabka ku sii dhufto yaani waxa geed fadhi u ahaa Gudoomiyaha Cismaan Bar ayaa geed fadhi u ahaa waxyaabahaas wax kale ma ahan dhibka jira waxay tahay marka uu rabo in maaragtay dowladda federaalka ay telefoonka qaban wayso ama madaxweyne farmaajo uu ama Xasan Cali Khayr uu oo telefoonka laga qaban waayo wuxuu jecel yahay inuu wax abaabulo si loogu yeero xamar tusaale ahaan waxay tahay hadda wuxuu joogaa xamar wax kale uma joogo mooshinan soo xaliyay xalkiisii maxaa la iga ogol yahay waa dalaalnimo waa maaragtay wax aan Hirshabelle ka soconaynin waxyaabaha aan soo jeedinayno ka xildhibaan ahaan waxay tahay waxaan leenahay dastuurku aan leenahay aan ku dhaqano dastuurkeenana ma qabo in la sameeyo wax la yiraahdo corruption in la sameeyo waxyaabaha hadda gudoomiyaha oo ku dhaqmaayo oo inuu maaragtay mooshin geed fadhi u noqdo aanan jirin oo mooshinkaas xataa oo ku jiraan xildhibaan aanan saxiixin oo dhowr xildhibaan inta loo yeeray liir maaragtay adika soo sameeya wax la yiri waayo waxaan leeyahay marka xildhibaanada maaragtay dowlad goboleedka Hirshabelle inay isku duubmaan waxyaabahaas oo kalena laga foojignaado annagana aanan nala gadanin
ayaanan u ekaanay dad for sale ah oo la iibsan karo waxaan leenahay mandate aan leenahay dastuur aan leenahay kala dambeyn aan leenahay yani maaragtay inaan ku dhaqanaa mandate-keena yani gudoomiyaha waxyaabaha ku dhaqmayna waa khayro sharci yani maaragtay inuu hadda u joogo xamar oo u joogo maaragtay in la wada hadal siiyo oo dad oo la fariisanayo galo wasiirro sheegana wasiirro ah oo federaal ka tirsan oo ayaga naftirkooda maaragtay aan leeyahay yani xalka Hirshabelle ma wadaan waxay rabaan Hirshabelle inay qasaan waxaan leenahay anaga Hirshabelle qas diyaar uma ahan Hirshabelle iyo dowladda federaalka waa is ogoshahay waana heshiis ayaana ka dhaxeeyo wax dagaal ah hadeertaan oo Hirshabelle ka tiran ma jiraan waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada federaalka oo la shiraayo wax yani maaragtay inaysan hadeertaan aysan abuurin xarqalad aan Hirshabelle ka jirin mooshin maba ahaynba waxay ahayd wax la soo abaabulay ahayd una dhicisooda wuxuu ka helay jaanis ah xamar soogal waa lagu hadlayaa wasiir kadib uu heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Calinuur oo soo hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan u dul qaadan doonin in xilligan mooshin iyo isqabqabsi laga dhex abuuro Hirshabelle maadaama doorashada Hirshabelle uu ka harsan yahay waqti kooban isla markaana loo baahan yahay in waqtiga harsan wadajir looga shaqeeyo midnimada iyo dowladnimada sidii bulshada loo gaarsiin lahaa asigoona ku eedeeyay abaabulka mooshinkaasi dhicisoobay sida uu tilmaamay inay ka dambeeyeen abaabulkiisa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed siyaasiyiin iyo wasiirro ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay waxaana uu fariin u diray xildhibaanada iyo siyaasiyiinta daneeya Hirshabelle oo ugu baaqay in wadajir uga shaqeeyaan midnimada iyo dowladnimada Hirshabelle sidii bulshada loo gaarsiin lahaa mooshin waa la keeni jiray xildhibaano ayaa ka daba qaylin jiray xildhibaano ayaa media soo istaagi jiray xildhibaano ayaa dhihi jiray annaga ayaa mooshin ka wadno annaga ayaa saan ah mooshin aan meel laga soo keenay la ogeyn oo xildhibaan ka daba qaylina oosan jirin ayuu ahaa mooshinkan xildhibaan hadeertaan media inta istaago dhahayo mooshinkaas wadnaana ma jirin waxa loo socdan wax kale ma ahan waxay tahay maaragtay in lagu jiljilo madaxweynaha dowlad gobolka Hirshabelle mana yeelayno waxaan aqbalayna ma lahan in maaragtay saacadan isqabqabsi iyadoo 2020 aan joogno isqabqabsi siyaasadeed in Hirshabelle laga abuuro Hirshabelle way nabdoontahay way nabadaas ayaan ku dhamaysan doonaa hadii Ilaahay yaraado waxa noo haray ayaa wax yar iska ah waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta oo daneynaya Hirshabelle waxa noo haray wax yar iska ah intaas dulqaata markaas waxa idinkaga banaanaanaya boos aad ku dagaalantaan oo ku soo dhaxgashaan Hirshabelle intii ka horeysan ina banaanka naga taagnaataan oo wax kala laasta aadan noo keenina aydan jiljilin madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle aydan awood aadan u sheeganina farinta xildhibaanada la wadaaga waxay tahay midnimadu waa shay qaali ah xildhibaanadan waxaan ku talinayaa inaan mideysnaano waxyaabaha xaq ah aan ku dagaalano waxyaabaha xaq ah inaan ka soo istaagno gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku joogaa codkeena xildhibaan waayo waa anagoo kale wuxuuna dheerayaa waa codka oo kaliya haddii falalkan uu ku socdo oo maaragtay dalaalnimada ah oo mujaamalada ah oo been abuurka ah uu ka joogi waayo waxay noqon doontaa in markiisa laga keeno mooshin oo loo dhan yahay oo maaragtay codkii shan aan ku dooranay aan haysana aan xilka uga qaadno marka waxaan u sheegayaa dowladda federaalka ah qaasatan madaxweynaha maaragtay federaalka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in ay ogaadaan wax Hirshabelle ka jiro Hirshabelle wax problem ah oo hadda ka taagan ma jirto wax mooshin la yiraahdo ma jiraan wax mooshin la yiraahdo inuu sin jirin ana cadeynayo oo maartay xildhibaan u ah laakiin waxa jiro yaani wax la yiraahdo abaabul siyaasadeed oo wasiirada federaalka ay geedfadhi u yihiin iyo maartay gudoomiyaha baarlamaanka Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka SomNews Beledwey adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo eedahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida